السلام عليكم. BTS K-pop sanadka 2019 goobta Riyadh Sacuudiga mujtamaca Sacuudiga wuxuu ku wabarisay xaalad uuna weligii filaynin garoonka diyaaradaha Riyadh ilaa iyo magaalada bartankeeda waxaa ka dhacay xaalad sidana oohinta qaylada gabdho dhulka isku garaacayo sababta ay u ooyayaan maxay tahay haddaba oo ay dadka caadiga Sacuudiyaanka ku tilmaameen arrinkan inuu yahay dhacdo murugo leh mana ahan runtii arrin ku eg Sacuudiga kaliya xitaa Soomaalida saameyn weyn ayuu arrinkan ku yeeshay kulli qolyahan uma eko kuwa saameyn kaliya ku yeeshay dalalkaas oo kaliya sidoo kale waxa saameyn ku yeeshay carruurta qaar Soomaalida ayaa waa wiilal dhalinyaro ah laakiin qaabka mararka qaar waxaan ku arkaa rooseeto kale inay marsadaan marka mid kale oo jirtan waxay aad u xiiseeyaan sidoo kale markino ay xirtaan oo kale kabaha dharka waa arkaysaa magacaas ku qoran dad waxa jirka ganacsanaya magacooda inay ku soo qoraan fanaanadayaasha iyo waxa malaynayaa kabaha iyo marka carruurtii oo dhan waxa maqlaysaa ayagoo kule qaarkood kabaha oo waxaan rabaa mataqaanaa BTS ama mataqaanaa waxaan rabaa K-pop marka maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc khatar ah qoysas badan oo Soomaaliyeedna sidoo kale ay ka sheeganayaan waxaan ka hadlaynaa BTS K-pop waana koox Korean heesto oo caalamka meelo badan qabsatay waxaa macquul ah waliba badan in gurigeena laga dhageystayaanaan dhihin aan adeegsano erey aad u qaraar waxaa macquul ah in gurigeena laga caabudo ha degdegin sug adiga igu raaci doona sababtaan ereygan u adeegsaday ereygan laga caabudo ah arrinka cajiibka ma taqaanaan dadka taageero waxay isu yaqaanaan magaca armies ciidan waxayna diyaar u yihiin fulinta wax walba ku saabsan BTS waxaad ku tilmaami kartaa adoon cabiid adeecid indhala'aan ah waxa laga yaabaa inaad leedahay waa maxeriyadaad adeegsanayso laakiin sidoo kale ha degdegin adaa igu raaci doona xukuumadda Pakistan ayaa suulisay boor aad u weyn mid ka mid ah magaalooyinka Pakistan laguna dhajiyay oo yani ay sameeyeen adoonta BTS qaybta Pakistan waxayna u dabaaldegayeen dhalashada mid ka mid ah kooxda boor aad u weyn ayay ku dhajiyeen mid ka mid ah magaalooyinka Pakistan lacagta boorkaas lagu sameeyay iyo kiraynta goobta waxa bixiyay armska BTS-ka ee Pakistan yani dadkaas sida aan soo sheegnay adoonta u ah ayaa lacagtan bixiyay Recently, an ad was displayed at a busy intersection in the city of Gujranwala, Pakistan, after an army received the Chamber of Commerce's permission to put a billboard of Jungkook up in celebration of his 24th birthday. waxa macquul ah waqtigan aan hadlayno in ay jiraan guryo badan oo Soomaaliyeed haddii ay noqdaan qurbaha ama dalka gudihiisa in ay joogaan dhalinyaro rag iyo dumar isugu jiro diyaarna u ah inay naftooda u huraan koox Korean ah ha u malayn sidoo kale inaan ka badbadinayno bal waan yaraynayaa markaad aragto mowduuca intiisa kale wadanka Turkiga wuxuu ka mid yahay wadamada muslimka ee ka sheeganayo dhibaatada BTS-ka arrinku in uu gaaro in taageerayaashooda qaar ay isdilaan sida in qofku markuu awoodi waayo in uu u safro Kooriyada Koonfureed oo ay u arkaan kacbadooda yani meesha adduunka ugu fiican sidoo kale kanaalka Turkiga wuxuu diiradda saarayaa maxay isu dilaan fanaaniinta naftirkooda kuwa BTS-ka naftirkooda maxay isu dilaan ayagoo malaayiin lacag haysto One after the other, K-pop stars are taking their own lives, putting a spotlight on the multi-billion-dollar industry with its addictive numbers, high production value, trend-setting dance moves and dadka ku xiran ee jecel markii laga hadlaayo ma ahan sida qof dhalinyaro ku xiran koox heesto طبعا way jiraan dad heesa dhageysto wayna badan yihiin halkaana kama hadlayno xukunka heesaa bal waxaan ka hadlaynaa wax ka daran xukunka heesaa waana caabudida bani aadam waxaad ku tilmaami kartaa xiriirka ka dhaxeeya kooxda BTS iyo taageerayaashooda mid caabuditaan ah waxaana muujinaya sidaan arki doona miraha heesahooda magacyada ay isu bixiyaan taageerayaashooda iyo sida ay u difaacayaan waxyaabaha ay sameynayaan in ay u dabaaldegaan dhalashada xubin kooxda ka mid ah ma taqaanaan musiibada weyn waa kelmadaha iyo ereyada ay xambaarsan yihiin heesaha K-pop-ka Koreaanka waxaan soo bandhigi doonaa miraha mid ka mid ah heesahooda oo ay ilaahay ula hadlayaan kuna tilmaamayaan wax xitaa aanan daanyarta lagu tilmaami karin jamaadaadka aanan lagu tilmaami karin haddii ay farxiyo fiska ku heestay markaad qadarisood qiimo u yeeshay qabweyne yeeshaan hadal caadi ah kelmada caadi af Soomaali caadi ah laakiin dhinaca kale aan fiirino miraha heesaha BTS K-pop-ka Koreaanka waxa la yiri marka koobaad qofka soo gudbinaya wax gaalnimo ah yani sida la yiraahdo naaqil kufr laysa bikaafir eriyadan aan soo gudbinayna dabcan waa eriyo gaalnimo leh heesaha miraha heesahooda xambaarsan laakiin waxaan u soo gudbinaynaa in aan muujino mid ka mid ah heesahooda miraha heesaha waxa ka mid ah sida ay leeyihiin
haddii aan ilaahay maalin la kulmo waxaan u sheegi qodobadan soo socda kow waxaan ku dhihi in noloshu ay tahay sidii kofe aanan la dalbanin oo kale waxay leeyihiin ilaah la sheegayo hadda dhuunta soo qabto luqunta soo qabto ayaan waxaan u sheegay sidoo kale in geeridu dhimashada la sheegaya ay tahay wax maraykanku sameeyeen aanan jirin su'aal ay isweydiinayaan ay ilaahay ula jeedaan oo ah ma hubtaa inaad nooshahay ilaahay ayay sidaas leeyihiin ma hubtaa in aad nooshahay waxaa jirta dhinaca kale heeso ay leeyihiin waxaan ahay ilaah waaro mid ka mid uu leeyahay waxaan ahay ilaah waaro ayaan ahay dabcan ilaahnimadaas uu sheeganaya ma ahan mid xaq ah laakiin wuxuu haystaa dad si indhala'aana u caabudayo kama labalabeynayo inaan ereygan adeegsado heesaagaas markuu leeyahay waxaan ahay ilaahay wuxuu arkaa addoon caabudayso kuwa lagu magacaabo armiska waxaa jira dowlado aanan muslimiin ahayn oo bilaabay inay ka hortagaan mamnuucaana BTS-ka Right now, BTS is being banned in a series of countries all over the world, while Turkey accused BTS of threatening traditional values. In Russia, promoting BTS has already been prohibited because it's claimed to be a part of LGBTQ+ propaganda. aan soo qaadanno xukuumadda shiinaha oo ah dowlad shuuci ah wax diin ahna aanan shaqo ku lahayn ayaa mamnuucay ama xadiday faafinta BTS-ka gaar ahaan addoonta kooxda ee shiinaha ku nool ee malaayiinta dadka sida indhala'aanta u taageersan sababta uu shiinuhu arrinkan u sameynaya haddaba maxay tahay shiinuhu diin shaqo kuma lahan waa in sida xitaa shiinuhu uu sheegay wargeysada kala duwan aan ku arki doonno dhallinyarada waa wiilasha ay isu beddelayaan ama u dhaqmayaan sida gabdho oo kale dowladda shiinaha waxay qayladhaan ka soo saartay mar hore xitaa in raganimadu ay dabar go'ayso ma ahan inay raggu dhammaanayaan waa in ragguba ay dumar isu beddelayaan meekabka ay marsanayaan jileeca gaar ahaan da'yarta taasoo ah in wiilasha aadka u daawada kooxdaas ay noqonayaan mukhanathiin dowladdaas shuuciga ah ee aanan diin wax shaqe ku lahayn waxay ka baqaysaa in berri la waayo wax warshadaha ka shaqeeyo markay wiilashii oo dhan meekab wada marsadaan jilcaan gabdho u ekaadaan xarig meel yaallo ayna ka tilaabsan karin haddaad wajeedada fiiriso waa kooxda K-pop-ka ah yacni shaki kaama galayo qofka aad sawirkiisa arkaysa inuu yahay qof dumar ah laakiin waa wiilal meekabka ay marsadaan awgee sawiradan ila fiiriya ma sheegi kartaa rag iyo dumar midka uu yahay qofkan waa mid ka mid ah ayaga waa mid ka mid ah kooxda BTS dadka daawadana dabcan yacni waxay isku dayay in ay u labistaan sida ay u labistaan oo kale waxa ay marsadaan in ay marsadaan waana sababta uu shiinuhu ola dagaalamaya arrinkan muddo dhowr bilood ka hor ayaan xasuustaa in aan YouTube-ka marka daawaday warbixin yacni BBC-da carabiga ayaan filay inay samaysay oo ah in xukuumadda shiinaha ay warbixin ka soo saartay warbixin argagax leh in argagax mustaqbalka haysa shiinaha uu noqonayo dabargo'a raganimada ragga yacni sida dumarkii oo kale u dhaqmaayo waxaana socda shiinahana ka socda olo rasmi ah oo arrinkan ka dhan ah sababta ugu weyn uu arrinkan u imaadayna waa K-pop-ka iyo heesahooda wargeysyo kala duwan ayaa ka hadlay qodobka in shiinuhu dagaal ku qaadayo wiilasha isgabdhaynay iyo ragga dumarka u eg iyo sidoo kale BTS-ka wargeyska Time ee caanka ah ayaa wuxuu leeyahay shiinaha ayaa TV-yada ka mamnuucay in ay ka soo baxaan ragga dumarka u eg sidoo kale wakaaladda AP Associated Press ee Maraykanka qodobkan ayay sheegaysaa in shiinuhu ragga dumarka u eg uu ka mamnuucay TV-yada sidoo kale NBC arrin ku saabsan qodobkan dadka K-pop-iska oo ay armiska u yaqaanaan ayaga ma dhahayno yacni daawadayaal ama dad jecel koox haysto arrinku intaan wuu ka duwan yahay waxaa jira dhalinyaro badan oo sheegay in ay ka tageen inay markii hore daawan jireen BTS-na ay ka tageen taasoo ah ma ahan yacni qof koox haysto jecla kadibna iskaga tegay arrinku sidaan ma ahan dadka heesahan dhegaysta dadka jecel ama ku xiran kooxdan BTS Kooriyaanka markuu ka soo tagayo micnaha waa qof sidii diin kale ka soo baxayo kale waa inuu iska daayo waxyaabo uu samayn jiray tuquus uu samayn jiray inuu iska daayo ma ahan arrinkani ma cajabin khalaas waa iskaga tagaya waa inuu qofku waxyaabo badan sameeya sidii in uu yacni caqiido kale mabda' kale ka soo baxayo kale turki al sheekh ninka sacuudiga u qaabilsan dhexda noo xirada waqti xitaa caalamka aanan muslimka ahayn qaylo ka muujinaya BTS K-pop-ka ayuu keenay dhulka xarameynka waana tii ay dhacday runtii fadiixad sumcad dadkaas muslimiinta dhulka gelisay kumanaan gabdho muslimiin xijaaban ay qarka u fuuleen in ay naftooda waayaan oohinta iyo qaylada iyo siday dhulka iskugu garaacayeen keliya waxay rabaan ciyaalkaas Kooriyaanka in ay ku boodaan kadibna ay habsiyaan Cabdalla Al-Kuuri waa muslim Kooriyaan ah waxa ku dhacay xaalad ama kaag ah markuu arkay BTS dad sidaas ah oo la geeyay dhulka xarameynka ولو في الأرض مباركة حدث هكذا فإذا هم يأتون إلى كوريا ماذا سيفعلون؟ فهذا شيء ما غير شيء خطير ولا نعرف نتيجة هذا العمل اللي يحدث
الجنون. kanaalka shu'uun islaamiya ee youtube-ka ee uu leeyahay yar masri lagu magacaabo mustafa sharqaawi ayaa muddo dhowr isbuuca 3 isbuuc ugu yaraan ku jiray dadaal aad u badan oo arrinkan oga hadlayo wuxuuna sameeyey xalaqaad ugu magac daray alcaa'iduuna min addiyaac dadka ka soo laabtay lunsanaanta tobaneeya dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira oo daawan jiray K-pop BTS-ka haddaba dhallinyaradaas uu marti qaaday ee markii hore daawan jiray fariimahooda markaad dhegaysato waxaad yaqiinsanaysaa arrinku in uuna ahayn qof jecel koox heesto bal uu yahay xiriir addoonnimo arrinku in uu matalo kale yani in uu yahay diin cusub kaan ma inuu yahay diin cusub inuun arrinku ahayn yani qof dhegaysta hees koox in dadka jecel BTS-ka ay u dhaqmaan sidii in ay addoon raqiis u yihiin kooxdaas Kuuriyaanka bal xitaa ay diyaar u yihiin in ay naftooda waayaan in ay naftooda kooxdaas Kuuriyaanka darteed u waayaan tobaneeyo qof ayaana ficlan isdilay oo dhalinyaro badan oo muslimiin ku jiraan haddii aad carabiga fahmayso oo aad rabto wax badan inaad arrinkan ka ogaato caalamkaas mugdiga waxaan kugula talinayaa inaad raacdo dhageysatana xalaqadaas uu sameeyay yarkaas Mustafa Sharqaawi kanaalka shu'uun islaamiya maadaama dadaal dheer uu geliyay dad badanna uu waraystay gabar ka mid ah gabdhaha dhageysan jiray yani waxay tiri markaan ka soo baxay kaanama qof yani aanan muslim ahayn oo islaamnimada dib ugu soo laabtay waxay tiri markaan ka soo tagay heesahaas dhageysigooda markaan iska daayay raacitaanka jacaylka kooxdaas Kuuriyaanka waxaan u ekaaday sidii qof mar labaad soo islaamo kale kaanama ahaa inaan diin kale ku jiray waxa macquul ah markaad qisooyinka dajaal akhriso oo yani aad isweydiiso waa ka qofka muslimka dajaal raacayo laakiin maanta waxaad indhahaada ku aragtaa jawaabta su'aashaas aad isweydiinayso ugu dambayn mas'uuliyad ayaa kaa saaran carruurtaada iyo waxa ay daawanayaan waana lagu weydiin dhinaca kale haddii aad 15 sano ka weyn tahay aadna aad u jeceshahay dadkan waxaad ogaataa in aad tahay qof mukallaf ah inaad tahay qof qaangaaray tiin ayaan ahay waan yarahay iska ilow 15 sano haddaad gaartay waxaad tahay qof afcaasha ficilada uu samaynayo lagula xisaabtami doono sidaas darteed khiyaarka adaa leh inaad ilaahayga kownkan abuuray addoon u noqoto iyo inaad mukhannafiin kuuriyaan ah addoon u noqoto mawduucan intaanu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu